waa hawl culus oo magaalada ka socota waxa dib loo cusboonaysiinayaa nidaamka biyagelinta ee Hargeysa waxa hore loo soo dhameeyay ceelal cusub oo kuwa biyaha laga soo saara ah eebabka magaalada keena iyo barkadaha lagu kaydiyaba waa magaalo 20 sano ka badan dadkeedu ay ka cabanayeen biyo yaraan markasta waxba laga qabanayaa waa la oran jiray lama si qaban jirin hadda si hawl ayaa socota muuqata midowga Yurub iyo dawladda Jarmalka ayaa ku bixiyay lacag 40 milyan kor u dhaafaysa sidii loo heli lahaa biyo la cabo dadaalkani dad ayuu biyo tirayaa kuwaasi waa beeraleyda ku nool deegaanka Dar es Salaam oo ilaa 30 kiiloomitir waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa waa dadka ku nool barta biyaha Hargeysa lagu cabo laga soo saaro amar uu soo saaray Maxamed Muuse Diiriye oo ah wasiirka biyaha ayay ka naxeen waxay taranso waxyeelo keenaa jira runtii waan qadarinayna cid kasto waa dhulka ku forsato inay wax kala soo baxdo doonaysa laakiin qaabka imka aanu shaqeynaa waa ku faakahaysi ganacsato badan dad badan oo magaalo tijaartii qaranka oo dalka waxa degmo walba leh ama gobol walba leh maanta waxay halka ka sameysteen waa beero biyaha la isticmaalaya ee laga soo baxay halkaas waa kaydkii kaliya ee doonaynay inaynu ummadda kordhisay ee caasimadda ku soo urureysay dhammaan kala degan ku dhalanaysa inuu soo saaro mustaqbalku waxa ka mamnuuc meesha la yiraahdo degmada Dar es Salaam eelaan dambe oo laga qodi karo inaan jiro taas waa amar soo saaray hal qaato waa 200 kun eelkay ka cabi lahaayeen qof ha isticmaal kari waa arin aad iyo aad laakiin wixii la qoday waa la iskaga iman wax dambe loo qoday aagaas ma jiro taa la ogaado deegaankaas Dar es Salaam waxa ku yaala beero soo saara noocyada kala duwan ee khudaarta inkastoo dawladdu ay sheegtay in ganacsato ay leedahay haddana Mawliid Nuur Cali ayaa kamid ahaa beeraleyda deegaankaasi ku dhaqan oo cabasho ay wali jawaabteedii sugayaan ula tagay wasiirka biyaha Mawliid ayaa laga joojiyay ceel uu qodistiisa waday riiga laftiisii ayaa umaan maqalnay isagoo lacagtii naga haya inuu yiri shaqadii waa lay diiday kadib waxaan u tagnay ninka la yiraahdo maarayahoon ku nooliniyo maxaa jira wuxuu gabigiisaba waa la joojiyay riiga gabigiisaba ama qodi karaan totally maalmaha kamida ayaa waxa dhacay in naloo keenay ciidan beerteeda lafteeda oo la yiri riig bad qodanaysaan ciidankii waxay ahaayeen ilaa 20 askari aduu muddo nagu dulmeereysteen kadib way naga tageen adduun kale oo aanu haysano oo na soo galaa totally ma jiro waxaanu haysanaa waxa weeyaan beerinaynay beertaas muddo waa nolosheedii waa kaabidayadii waxaanu haysanaa kaliya waxa weeyaan waa nolol maalmeedkayga waxaanu ku sixi jirnay waxa weeyaan waa beerta mashaariic idinama siiso xoolo kale idinama siiso xoolahayagiiba ku baxay adduunkayagiiba ku baxay iyagoo taasi ku baxeen bay leeyihiin haddana ha shaqaysanina waranagu waxaanay kuwa biyaha dul yaala waxa jira injineero la shaqeeya wakaalada biyaha oo amarkan ku taageeray dawladda balse injineer Cabdirasaaq Axmed Gaas oo shahaadada master ku qaatay cilmiga biyagelinta ahna injineer madax bannaan ayaa ka aragti duwan injineer Gaas dhowr sanadood ayuu qayb ka ahaa hawlwadeennada mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa isagoo ka socday hay'adaha dhaqaalaha ka taageera Somaliland marka la eego 200 oo ceel oo beeraley marka la qodo ayay u dhigmaan hal ceel oo geedib leh marka la leeyahay waxa ay dhibaato ku hayaan dadka beeraleyda ahi ee dhulkaasi ka beeranaya biyihii dhulka hoostiisa ku jiray anu fikirka waxaan u arkayaa fikir waqtigiisa ka soo horeeyay 100 sano kadib maanta haddii aynu halka eegno Hargeysa dadkeegu uu korayaa beeraleydu way badanayaan waqtigaas oo kale in haddana dib u qiimeyn loo sameeyo markaas oo kale la soo saaro laakiin maanta waqtigan xaadirka ah sida aan ku hayo dhaatadii aan ka qaadi jiray ceelasha 2014 ilaa 2017 ma arkayo waxaan leeyahay lama use garayn biyaha dhulka hoostiisa ku jira beeraleydan hanti iyo tacab badan ayaa ka galay beerahooda oo sanado badan ay soo falayeen waxa ay dalbanayaan in loo ogolaado inay wax ka beertaan biyaha dhulkooda ku hoos jira welina jawaab ayay sugayaan